السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناخسن داوديال كسو داودا channelka YouTube-ka Aslax Abasaafi. maanta waxaan idinka sheekeyn doonaa qisadii Aasiya binti Musaaxim oo ay ahayd xaaskii Fircoon. waxaana loo bishaareeyay janno. sababta jannada loogu bishaareeyay maxay tahay walaalahayga? waa xaaskii Fircoon. adinka ayaa dib u ogaan doontaan fadlan filimka ha mootinina ha daminina ee daawada ilaa iyo dhamaadka. haddaba aan bilowna qisada. haweeneydan waxaa la yiraahdaa Aasiya binti Musaaxim. waxay ahayd Fircoon xaaskiisa waxayna ku nooleed guriga Fircoon. run ahaantii Fircoon dadkiisa aad iyo aad ayaa ugu baqi jireen. wuxuu ku qabtay gacan bireed. dadkiisa hadday ay maqlaan codkii oo Fircoon aad iyo aad ayay u cabsan jireen. kadib Fircoon waxa uu imaaday shaytaan. shaytaan ayaa qalbigiisa waswaasiyey. wuxuu dhahay ilaahnimo sheego. kadib Fircoon heer wuxuu gaaray inuu oo ilaahnimo oo sheegto oo dadkiisa u dhaho ana rabbukumul a'la. rabbigiina aniga baan ahay. Fircoon wuxuu ahaa mid ilaahnimo sheegto dadkiisani waa ka cabsan jireen. laakiin Aasiya Fircoon xaaskiisa ma rumaynin Fircoon inuu rabbi yahay. qalbigeeda waxay ku rumaysay lillaahi alwaahid alqahaar, ilaahay inuu yahay rabbigii weynaa ilaahay keliya. si oo sir ah ayaa ilaahay ay ku rumaysay. Fircoon way beenisay laakiin si oo sir ah. habeennimada ka mid ah Fircoon wuxuu arkay riyo. aad iyo aad ayuu u naxay. subaxdii markii la gaaray xaaskiisa Aasiya wuxuu dhahay xaaskaygii aniga waxaan arkay riyo. riyadaasina oo ah Masar dhan oo gubanayo, guryaha dhan oo baaba'een. kadib Fircoon wuxuu dhahay halee soo waco dadka kitaab gaablowga ah ama dadka oo faalada ay fiirinayaan. waa loo soo wacay. kadib Fircoon wuxuu dhahay aniga waxaa lii tiriyo waxaan ku arkay Masar dhan oo baaba'ayo oo dabku kacayo. maxay fisiraysaa ii sheeg. kadib kitaab gaablowga wuxuu dhahay wuxuu dhalan doonaa wiil. wiilkaasina wuxuu qaadan doonaa boqortinimadaada. kadib Fircoon wuxuu amray wixii wiil oo ay dhalanayeen dhan oo reer bani Israa'iil in la baabi'iyo. kadib wixii wiil ay dhashto dhan waa la baabi'in jiray ilaa iyo muddo sidaas ayaa socday. kadib Fircoon dadkiisa ayaa u imaadeen. waxa uu dhaheen Fircoono reer bani Israa'iil dhan waa diloosaa adiga. wiilkii dhasho waa la dilaa. marka anaga yaana daafacaa. meehii dhan gabdhalay joogaan. wiilashii dhan waa baabi hoosaa. wiil la'aanaan ugu dhacaa hadhow.